mid ka mid ah ceelasha geela goonida u ah ee deegaanka Soomaalida. Ceelka Oonyood ee degmada Sagag waa ceel geel caan ah oo maalin kasta kulmiya boqolaal geel ah oo meelo kala duwan ka soo arooray. Haddaba maxaan ka ognahay nolosha geela dhaqatada iyo siyaabaha ay uga waraabsadaan geela iyo waliba faa'iidada biyaha dhanaha ah ee ceelka sulul uu leeyahay geela. kani waa mid ka mid ah geel jiraha geela ka waraabiya dixda sulul oo aan la kulanay xilli uu si aroorinayay geela ceelka Oonyood. sheekadan ayaanan dhaxbartay. saatay fiicanta walal alxamdulillah xaalad ka war balmar balan geela badoodi geelana wada haye waa siyaasada geelana saa u boodiyay geela xageed wada geela ceelkan ku wada ceelka suleed baan ku wada Oonyood wallahi waxan maad wata muxuu yahay waxa weeyaan moobilkan ku dabaysanaya baytarigi baa ku xiran haye maxaa la yiraahdaa sagxad baa looga yaqaanaa bareebaadiyaha naga imika sidan oo kale sagxad baa looga yaqaanaa baytarigi baa ku xiranay haye moobilkiina tonkan ku wata marka sida weeyana waa ila ku xir baa la yiraahdaa eegma baytarigi bas ku taabtay baytarigi bas ku xiran waa ila ku xir weeyaan haye waka ila ku xir baa la yiraahdaa geela xageed soo aroorsi geela waxaan ka soo aroorinaa korayow يعني نرجيه كجرب نو ده نهال كاسان ساك ساك حين. كوريو واحد. كوريو واحد كوري قبرهجوج ويا. قبرهجوج يا فرشنا ولا حيسا. حاجة ترصدي. ووضد النير قوما أي دهلان يا قرر. ويا. هي. سدا ويا. يا. مركي لا مركي المكواك دعرات كي ويا أنا وحنا كل هرو عبي. مر هرو عبي. مسح شكر. وحو عبي لبع الشوق هذا. لبع الشوق هذا. مركي هديك مالك كوينت عبي سو أتصاع كوك حاجة سو نقنيها. وعادي دعراتك وكبعي. ليش؟ يا ما شوت تجمع وعادي وحملية. وحملية. لما تشركل كله عليه وأنا هاخد اللاعية. وكها. سو نقنيها كلها. وتشيل بحية. دعراتكم حارية. دعراتكم ما وحويا دعرت ومن حارك كاي ماديو. مت شركة حنون تسمينه شركة. واتها شركة حنون يسجله. وكها. سدا ويان صح marka hadaba xaaladahu waa sida weeyaan geela saas halkaas aan ka keenay ceelka Oonyoodana waan ku wadnaa Oonyood baan ku wadnaa sulul kolkii ugu horeysay xayta soo arortay kolkii ugu horeysay waxaan ka soo arornay qudadka xiraxun iyo bankan ka soo arornay ayo degmada Sagagu waa degmada Sagageedu wallahi garbi waxaan ku maalinta imika adu garbayno yaa noo dhow labada way garba maxad ceelka loo jiray hada waanaan hayno waanaan metelin وده ها وحنا نشوفنا دقمة النادي يدل كنا يوحنا لمان وكا حشر ما يورمنته واقع قسكة دقاقة يورمنته علمه ذا كتيره علمه ذا كتيره ها ويدوده وكا وحال ليدا جويو ها وهالقابن ويا نقول كمد ما وهالقابن ويا سمر هالقابن ويا جويا ليدا قابن ما لوجو بحي جويو وكا تلفونك markaad wadato meel ka soo tagto dadka kala xiriir meel kasta oo tago kolkaan imika baytariga ka bixiyaan dadna mobilka waa si caadigiisi uma baahanayo charge iyo waxa weeyaan machine macna la istaaro charge waxa uma baahan aniga baa chargeeysan geela dhaxdiisa magacan sagxada maadan baa wala baxay may sagxada waa waxa la yiraahdo imika qaab dhaqanka ribaadiyo dhan waa wax u yaqaan sagxada loo yaqaan balsaade okay daawadayaal sidaad aragtaan waa solar laakiin deegaamadan waxa looga yaqaanaa sagxad halkan waxa ku jira baytariga wakaas baytariga ku jira baytariga dabku xarig ayuu ku xidhay wakaas charging halkan way ka qaadanaya iyada marka samacada dhigtaa may ceedaas iska dhigi kolka imika socodka aan baad soo wadin ila adiga waa socdo gubanaya iyadina labada dhan walba way ka qaadanaysaa imika waxa dhihin halow geeli u saaroor imikadana baan ku xidhaya bal intay gelisay ilig xitaa haye alaanka inta lagu buuxinaya waqtigeeda wuxuu ku buuxinaya imika saaqolka soo dareeray baan ku xidhay moogtahay haye imika dabadna way buuxisay haye okay saacad buu markaan soo dareeray imika mobilkii waa ka black والله موبايلك إمك واقع هاي وضرك تصمم موبايلك واقع وكا بيتري كلا واقع كانت قل هيسا كان مكل بعض وكل بعض موبايل كلا كانت قل هيسا هاي
سامتها بالقلة واكنا ديك صوفير سوي جاب تايو قبكن هاي كون هيا سي ما هيسي صايين ما عاجل ما دي شيء ما عايق وحا ليلى عبد الله ذا ليلى عبد الله ايوه عبد الله سلوب ليلى عبد الله سلوب انا فارح بالي هذا وكا عبد الله سلوب ريولا ولي بليله كو مقع ديره عبد الله سلوب ريولي وكا مقعاس ولي اذا عاد ما كان شيء اذا عاد مي وهذا كهر كمان wax media كمان هذا ولي كمان باريهم بان ما لو وريستay maalintii koobaad ee waxaan ku leeyahay waraysto maalintii koobaad weligeyba waa maalintii koobaad haye bal ka war kaamarada lagu qabto weligeyba waa maalintii koobaad ee waxaan ku wajigayga kamarada hor keenaba imsa sanad geel wax la weydiiyaba imsa sanad geel jiray geel ka war hadda alla geel ma naxsicid waa soo dhalatay haye waka balada shid Soomaa waan shiday imsa bitriga shibseli waxa imka gashay imka saddex ilig waa gashay hal ilig buu dhiman yahay intee lag buu jiray wuxuu jiray imka waxa weeyaan imka 2 saacadood buu ku xidhnaa 2 saacadood uma baahna imka cid alla cidaan waxaan ku arkaba dad imka la hadlaya labada ilig intee lag ku haynayaan in badan bay haynayaan haye waka waan gartay sida weeyaan waaye waxaad nooga warantaa geela وكا إمك سمعت دبوا وكاس والله سوق راعي كل كلمة. هلو. ها حاب كبرين. لما سيتي العيال في واسطة. أدبان أوفي عنا بقول فيها بقول. هيه. عيال كيف أفسس عنا كلنا. وأنتي هذا سكحد وفحنا ثلاثة فيو إما كان بيننا كفرة. marka imkaan galiyo dadna waa imkaan soo gaar saadaan u galiyo ba soo garaal sida weeyaan hadda daawadayaal sida aragtaan saadu taleefanka bayteriga u galiyay waa la soo garaacay waxaan soo garaacay qaar kamid ehli yaa ku soo wacay waxa soo garaacay islaamtaydi haye marka waxay ku tiri maxaad ku barideen bay tiri maxaad ku dhacay bay tiri oo waad raagtay ku tiri haade madaxda nigu sugaysaa may reerkii iyo wadankiiba ka soo hadlaysa reerku waxa ku barideen bay leedahay xira xunde iyo bank waka geela ma nooga warrami haye imika waxaan ku sii wadnaa dixdii waa ka geeli dabada aan ka gaarnay aan ka xaynayno marka geelan meelaha biyaha way badan yihiin haye bal ceelkan suuleed waxa aad ku doorateen geel uu isugu yimaado maxay tahay waxa weeyaan waagii hore carra loo dhigi jiray haye waagii hore milixda loo dhigi jiray haye wixiiba waa laga daayay haye milixdii iyo carradiiba ceelkana noqday labadiiba ceelkana kaafiyay waaye marka labadiiba ceelkana kaafiyay milixdii carrada maxay taraysaa geela milixdii iyo carrada waxay u taraysaa mid wali waxa jeelbaxun baa looga rabaa waxan adduunyada jeelbaxun jeelkaasi muxuu yahay jeelkaasi wuxuu yahay shaah hadii intii la saabiyo hadii intii dabka la saaro aan kor lagu dari ka war haye سيبين نقول هدان إسكعب وحنا نقول مايو وحنا نقول ميسي لكن واحد عظمة يلنا يا ردن يا بدي خلي الضبلة صارت ما ردن كان بس ما كجري مس فيتامينية وحياة فائدة ولا جرك جيلة حياة فربضانة وحوي تشيلك وحنا مالين وح كذي قطعي وحياة إنك حنون كأكله وحوي سودوا مقاضنا ودي أكله كذي قطعي وايم محوك هلا يا جي بيه كهلا وكل استاجي يشجع كل كل شيء ليا وواحد فلان أدبول بديه كل شيء إنك عيل كعبه استاجي مدق دقاقة يحرك حتى وعنيا والضرريا والدبريا وحاف وحياة فربلي عيلكن وكا تقول مركع عنه وبدنا وحكد اللاعي وحلا وح ملح تركي سكوت مال أو نوع كد اللاعي صح وكا سلاوية oo geel uu dararaya uu dibiraya aad iyo caano noqonaya uu nafisaya meel geel wuxuu ka soo cuno wax u taraya ka soo cuno wax u taraya waa hanti teel baxsan waa ruux caafimaad qabay ka dhiganta marka weligii masan baa la soo han jiray oo ceelka u iman jiray dadkay ilmaha aragnay waa kana taariikh inta ceelashan ay qodan yihiin in badan bay weeyaan sidaas bay ku arkay geelu marka waa ceelasha ugu fiican ee geela waa ceelasha geelka waxa weeyaan deegaankeena bulaala soo raaca waxa soo raaca galaar roob oo kale waxa weeyaan sagag kow firaswan qonkii bay gashay oo kaas waa la isugu yimid taniyo waxaan ku galbeed iyo taniyo bari taniyo baraha waa lagu soo arooriyay waxaan weydiiyay geel bal la joogtaa firaswan maxay tahay firaswan maxay tahay waxay tahay firaswan waa kow way ka dhiganta xageed ka baratay maxay tahay waa luqadee kulli af Soomaaligu waxa weeyaan gabigiisa ba dhago ma af Soomaaliba af Soomaaliga ba ma dhago Carabi Ingiriis wax walba laga dhaxleeyay innagana no waxaan ku yiri ma waxbaad weelad wax baratay la yaqran wala yaqran ma qoro waxna ma akhriyo haye gabigayga waxaan aad sheegaysa marka maad boosatay waa boosiga Soomaalida ay ku hadlaysay uma dhagaabiyo dhigta ka qabtay haye waxaan baray ma Ingiriis ma barani حبش ما براني وحقله صومالي عندي بيتشا كليه
luqada kale maxaa taqaanaa wax kala raqana ma jiro af Soomaali Soomaali weligaa geela ma raacda geela ma raaca geel jiro ma tahay orama waxaan ka aqaanaa bishaan haye bishaan basta wariya Cabdullaahi waxaan ku yiri nin cajiib ah tahay imika dixdii baan soo gaadhnay qorshaagu muxuu yahay maxaa sameeyni qorshaygu wuxuu yahay imika geelan waraabinaya hadda geel wuu aalisay waraabinaya haye koode haye marka imika wakaas ninka weyna duqa ila geela soo bariyo waxaan ay daba dhaw kuma taqaan adba daba dhaw ma tii ma taqaan ha anu daba dhaw ka ninkaas daba dhawna marka ay daba dhaw nimaan baad watalaysa imika daba dhaw nahan ba leeyliga soo kaxay haye daba dhaw baa marka aad wadin anu daba dhaw baan ninkaas madaxweynahayga iyo furkayga sax anagu daba dhaw baan geela istaanaariga ka soo kaxay baa leeyliga faal soo qaado saas aniga leeyliga faalka marka maxaa faalku waxa weey dirgaha istaanaariga si u daayaan haye bal hada kaale aan faal leh waa kan imika faalka war faalka la kaalay waa la kaalay faalka war faalki away war la kaalay walikum maxaa war xagga nula sooka war la kaalay كانت أكو قبتان كو عاوية بالمانتا أنا مانتا جيل مانتا أنا كلا فالي تنوغيس هاي إيه واحنا قدام حوية وحويان طابة ويان دي مال تقالوا لك السوق قادر لكن وطابة أهان واكن هاي رتوق مو قوقية رتوق مو قوقية مين نعون دي مين نعون ساسان نوكسي إيه قد دوان مايو دوان مايو كان سلام تبينا هذا هاي واكن مو قوقية كان مركا هدي ها عبد الله waxaan ku weydiiyay ee gool marsi marka caanihi wixii ma ka dadin hanayaan mise geelan cabayni bay ka dhigata ha laga maalaya laga dhisay saadarteed waxay haysaa tu kale loo taas aad faashidina mari تاس ويديسي تاس بل هذا كدو هذا سوي ديسانه بل كسر ليه حتى ها ما تعبان سوا qisooyinka iyo sheekooyinka geela iyo geeljiruhu ma aha mid afka laga sheekayn karo balse marka aad hoos u gashid waxyaabo badan ayaa kaaga soo baxaya daawadayaal hadda aniyo Cabdullaahi Sulub Riyoole waxaan soo galay mid kamid ah maqaaxiyaha dixda ooyood ay ceelka sulul ku yaala waanu shaahaynaa xilli shaaheedkiiba gaaray waayo Cabdullaahi soo dabadhoon buu ahaa geela ayuu keenay xagga shaqadii waraabintii geela iyo celintiisii iyo horitaanka waxa haya rag kale oo madaxweynaha iyo team kale oo loo sii diyaariyo oo ah ragga geel iska laha hay Cabdullaahi waxaan ku weydiiyay waxa tiri marka dhaweyd dhawe af Soomaali waa dhawe ereyga dhawe muxuu yahay ereyga dhawe wuxuu yahay waa wixii ururteel isku dardaro haye dhawe waxa weeye neef adduunyada waxaan ku 10 neef baabad lahayd oo lo ah ama 10 neef oo ari aad lahayd haye waxaad igu soo darsatay ma taqaanaa 5 neef oo kale aad igu soo darsatay haye 5 neef ilaan anigu maan lahayn waxay noqonaysaa dhawe marka waa waxaad adigu waxaan anigu lahayn oo ku darsay weeyaan haye yaa dhawe leeyahay sax marka ku darsigii baad yaa ereyga dhawe afso dhawaha ayaa leeyahay asalba waxaas waa dhawe waxaan u maleeyaa dadka waxa ku boqolkiiba 60 in la wada garanayo 40 kalena ay garanayaan dhawa waye af Soomaaliga waa dhawe waa tiri afka Soomaaliga muxuu dhawe ku yahay Soomaaliga wuxuu dhawe ku yahay waxaad arkaysaa ruuxa waxa weeye kurdi ama carabi ama seen ingiriis waxyaabo fara badan waxaad arkaysaa af Soomaaliga ka wada mid ah ka war oo lagu wada hadlayo arkaysaa ya oo af Soomaaliga bay leeyahay waxaan ugu first one kolkaan kula muxuu yahay ay first one waa luqad kale adu luqadeenu yahay maleen waxaan u maleeyaa first one in ingiriis yaan bay hay adu xageed ka baratay ereyga first one waxa weeyaan dhagta un baan ka maqlay waxa weeyaan wax kale oo u galay ma jiro wax barashada gal hay marka first one waa erey dhawo ku af Soomaaliga waa erey dhawo ku af Soomaaliga oo dhaladahayn oo luqad kale ajnabi way erey kale dhawo maxaa kamid ah erey kale dhawo waxa weeyaan deeimka wayna gar laakiin way fara badan yihiin waxyaabo af Soomaaliga ku yar yahay inta badan boqolkiiba muhiimadan af Soomaaliga laakiin wax badan baa ururisa ku jirjira hay
waxaan ku yidhi nolosha geela intaad ku jirtay maxaa kugu yaab badnaa nolosha geela waxa igu yaab badnaa horta kulliga geel horta waa wada yaaba haye hortiisa hore gebigiisaba yaab ka samaysan haye waayo mahtale ka adaragta cid loo kula baxaya cadawgu ku geynaya cadawgu way farabadan yihiin nimaad colaad buu kula gelaya libaax buu kula gelaya gebigiisaba mahtale haye waa mahtale waa geel mahtalak waa dhibaato mahtalakaduna waa dhibaato haye ya af Soomaaliga mise waa dhawa waxaas uu gadooma iyo waa mahtalak iyo waa waxyaas waxa weey waa hal xaraf baa looga jeedaa marka ma erey dhawaha mise waa saxdi Abdullahi mahtalako ma dhawihii baa mise af Soomaaliga saxda waxa weeyaan dhawihii bay ka haysataa waa ururaysa isay laftiisa dhawa waayahay maxaa hay adiga xusuusahaaga waxay kugu badnaa ilaa hadda aad xusuusato intaad geel jirahayd geel dhaqan jirtay ilaa yaraantaad ka soo bilow kulli waxa weeyaan waxyaabo farabadan waxa weeyaan hadii loola kaca geela waxa weeyaan geelu marka ugu horeysa inuu mahtalakadiisa koobaad waxa weeyaan marka adiga waxaan ku kaliga socdo waxaan ku ordaya yaa waxaan ku midna xaqan kaaga baydhaysa midna kaaba adu siyaabo farabadan kulli geelu ma badhib laaba marley ma dhibla ma ad taariikh gaar ku qabsatay ninka ragga baa leeyahay jabkiisu ka sheegaya horta baraarahood haweenkuna baraarahood waa Soomaalidu waa mahmaa Soomaaliyeed hore baxday marka intaad waaba waxa igu darid waaba geel baan kaxeeyo meesha xaraariyo waxa meesha birqadayda maaha la yiraahdo xaraari yani xagga shaka mar haye oo gobolka Nogman oo gobolka Nogbeeda waliba siiba ceel weynaan ku yirtawaan haye way degmada loo sameeyay la ansixiyay gobolka loo ansixiyay waxa weeyaan shaarkood duuban hadii waxa weeyaan inaad waxaan ku leeyahay waxa farxada ugu baa malmalba aadna weydiin jireen haye dadku malmalba aadna weydiin shaarkii ku guntanaa malmalba aadna weydiin jireen yaanaga afar ilmood in rigaa geela noogu irmaan afartii maalma kamid ah baan deedna afartii baan reebnay afartii kolkaan reebnay baa geel baan deedna naga fakaday geel kulku naga fakaday deedna afartii baa habeenkii iyo goor casar oo habeen ahayn daraarna ahayn afartii uu duwaa naga dilay afartii uu duwaa naga dilay waxa la waxaan ku gudisnaa goor afartan midna salax ma taqaan waxaan ku talana ma haysan ya taasoo mahtalooyinka koobaad ugu daran bay kamid tahay marka haashu markuu ilmo ka dhinto ilaa ilmaha isbuug dilanayso waxay wax waliba qaab buu leeyahay hadii ilmo waxa ku kala geela kugu jira waa in talba waxay tuuri wax la yiraahdo sax intii la geliyo dabadana laga guuyo sankana laga guuyo la rafaadiyo dadna naqas lagu xidho inta laga qaadan waxay qaadanaysaa ilaa 2 saac baa la ag taagnaa ama 3 saac حولده هذين كبا بدناي وكبدنا ولي geela barkiis uu kala waxaysan yahay ilaa 6 saac ama 7 saac oo qaadanaya adi marka maxaa sameeyay maxaanu sameeynaa waxa ku yiri kolkii dambe waxaan ku yiri geela hal saac igarka noo taqaanay ma lahayn waxaanu ku talana ma lahayn marka dabeedna aroortii baanu deedna geedi baanu bartii baanu ka guuray geelal kale oo waxaan ku yiri dad islaami oo lahaa baanu dabeedna yaan u tagnay geelishi baanu deedna kolkii dambe yaan waxaan ku yiri naftanada yaan waxaan ku yiri yaan ku yaa baxnaani كاني وعلك أويد رجعنا يا شوية جيل عبينا وجيلن ورسكرنا سيتين وذا ما لقى عبيا هاي هلي 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 هاي فرصة مش هينا ماشي هروي ماشي هروي ماشي هروي وكايو وبركيلو بصور 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 وبركيلو بس أموضو بس أموضو بس أموضو بس أموضو قول بس أموضو جيلة إيه جيلة ورابيني صح إن الله هيسو محا فايدة كتبته وحو قرنا بيو قعبيان هاي بيو قعبيان صح marka inaad muxuu roocaalka soo fuusita qirnaya صح
حضارة بحالها كجرتي هذا حضارة waxaan ku raay rag ku diirsanaya هاي geelna biyaha ku cadeeya هاي arrimahaas ku jirtay صح faa'iidooyin ka mid هاي arrimahaas faa'iidooyin marka heesaha loo qaado maxaa ka mid ah heesaha loo qabo ka mid ah maxaan ku dhahaa hawiyaan caalki baa ka dambi ha geeli waa suwaysa ha he marka waxa ka mid ah way jirbado isweey oo la jecel yahay oo la jecel yahay jecel meesha ku cabiya qaashin maxay u tagayeen bug صح marka arrimahaas ka mid ah marka biyaha si fiican ugu tagay fiican buu cabiya marka هاي marka hawiyaan biyaha aad u cabiya هاي ila jecel ka soo garanaya ilaa inta kale ku ka dadayaa inuu ka dadaa dhacdo oo dib u carrameesh ugu jiray marka waa xadaarad wax la islaaf garanayo xadaarad la islaaf garanayo rag uu ku diirsanaya oo soo yahay oo xamra xoog diiranaya waa luuqu gali fahmayo ha gelno صح eeg waa wareegii koobaad ee geelu cabayo imisa jeer baa lagu soo celinayaa hadda adigu ilaa 3 jeer haye oo ma la shooya mise kolka uu ka kaban marka geelku hadda uu fadhiisanayaa haye xogo markuu yar fadhiyo bar saac yaa lagu soo celinayaa turku qalab baa leeyahay marka haye marka sidii hore si ka badan u cadaleeyaa qalab oo eeg uu ka rafaad badnaan halkaas uu laga yaabo inuu ka badan ka cad haye sababta biyo way ku jirayaan hawiyaan way u sameeyaan hawiyaan ku cabayaan inaba aan caadin marka waa durdur qalabti haye صح marka dambana marin iyo la yiraahdo waa la marinayaa hawiyaantii waxa laga yaabaa inuu marka mar uu yar qabanayaayo si uu beesadiyo صح marka saddexaadna maxaa la yiraahdaa waa la marinayaa marka waa maris dabi waa maris soo la taana waa maris haye tareera soo marweeya haye waa durdur iyo nooca durdur dabi tareerkii iyo durdurtii maris adigu waa maris haye kolka koobaad maxaa la yiraahdaa kolka koobaad waa kamiin baa la yiraahdaa kamiin haye waa kamiin tuuris haye marka kamiin durdur qalaf maris saddexaas u baan imisa saad geela shweys caagad ila toddoba meelaha ila hawiyaan waqti ka saan badii joogto meelaha laakiin waqti gaar ah ila toddoba sano sidoo meelaha صح هذا dhaqashada geela noocan waa laga bedelay si casri ah loo dhaqaa waa la xareeyaa qorshaas way soo gaadhay qorshahaas may dhigtaano ka maqal galbeedkan oo kale aanu ku maqal laakiin anagu imaka xareynta iyo umuuraha awood uma lihid waayo de waxa weeyaan wax waliba qaabeyshin iyo qorshe waxa dhici karta geelan imaka faraha badan ee nagu wadana inay 10 halaadba ka nacfirooyin taas naguma hadda ka hormaanaan arag imaka ma awoodi karaba way iyaga waa qorshe caadinka laga dhaqmo adigu waa ka wada rabtaa saaka dhan waa soo socotay imaka maanta dhan geela inaad waraabsaad rabtaan kadib inaad fuliso aadiya noocan casriga loo dhaqdaan ku duwan yahay marka inaad xagga u guurto intee laga waxay waxay ila tahay waxa weeyaan kullee waa ciidaada hooyo waa qaali kullee wadankeena ciidda hooyo hadii waxaan ku arrimaha noocaas iyo mashaariicda noocaas haday ka suurta gashana ku dayashan yeelan hadii kalena sideeda aan baan ahaan u ordide iyo rafaadka يا حقن قلبيت كاكران كم مغلى أي حقن فافن دوكر ها يعني كم مغلى هل كأننا نو خلت وابن يدنا معنا شركة بقيل يبسن يوحنا عاصم ويا ما أنا مغلته ما أنا أرجع مك لبعتنا هذا أنت ميل كتيران والله نقيه وحن كل عن هذه اللقاء يا ما أنا ده حارق هدي اللي قلت تقول لك أحمد ويا ويدون قارب عن نمان بانك أرك يا نمان كهو حن كدره فرصة هذا فربض ما كدره ما ويا كل كده موتوين بيبقى كعتين جيل سجالة موتوين كعتين با عاقدها ay ku shubayaan shaani dhagax la laga soo iibinayay bay ahayd markaas sida xabada faantada oo kale waa boqoriyaan marka waxyaabo fara badan baan ka dareemay sayid kuna sabsan maxay diideen kulli wuxuu leeyahay fursad mar bay waxaan ku saamaxdaa ma fursada wax kor garashada iyo aqoonta horta garashada waxa ka horeysa garashada iyo go'aanka oka go'aanka ma wali ma qaadan oka telefonkaaga waa dhacay oka sida weeyaan haye tan waa alaabtaydii dhammaan olgidir sida weeyaan marka eeg inaad iska dhaqataan imaka de sida baan isleena aad iska dhaqateen waayo de waxa weeyaan wax waliba go'aan qaadasho go'aankii wali nagama una imaninta oka aad baad ma santahay aad baan walaalkaaga qaaday aad iyo aad walaal boqolkiiba ugu dambeyn waxa ku daawanaya bulsho fara badan oo deegaanka Soomaalida ah waxa filaya inay ka helaan sheekooyinkaaga dadka maadaama nin geel dhaqatada maxaad u sheegi lahayd dadka waxaan u sheegayaa kolka hore waa dad islaami waan salaamaya يا كبعدي واحد نقول أمانة فكرة أقوى إن الناس يشيدين بنادى شعله هاي بالنلاش الجيل دقت النمضو مدفع عبام ما ينلاش الجيل دقت دت كمواش دقت كي كل كوجه رئيس هرت وحوي أنا ما وحير هلا هذا ما وحدير هلا هذا وحن اللي بعتها هاي نهرت كلا كله متجر
cad kala ma kulmo caana kala ma kulmo waxaan dhibaato ka ahayn oo kala kulma ma jiro ka magaalada joogay xayraanka ee kaariyoon laha annagana dheef dhaama waa dhib uun annaga xaalkanagu waka marka laakiin sida kale de waxa weeyaan hebel muxuu leeyahay iyo maxaa u dhalay baan ku xisaabtanaa muxuu leeyahay intaas oo kaliya weeyaan annaga ninba ninku ka geel badan yahay waxaan ku gabadha ka guursan og yahay oo waxaan ku qaab dhaqameedka iyo waxaan ku imika baadiyo oo kale yaa laga jecel yahay loonaya hebel 100 halaad buu leeyahay marka imika maanta adaa gabadh fariisto waxa lagu dhimay ma de waxa weeyaan la ima dhibayo waxa weeyaan geel badan baa laga rabaa waayo geel buu hebel leeyahay Cabdilaahi Sulfiye waa nin geel badan geeli dhowr iyo 10 halaad hana siiyo baa loonaya bas intaas lagu xiranaya xagga hore waa lacagtii oo kale waaye ninkan waxba haysan ha soo kaalaysto kale la yiraahdo waa miyi magaalo sidii la kala haan weeyaan waaye rag eega xoolaanta maxaad ugu yeelay rag xoolaanta waxaan ugu yeelaa macnaa baadiyaha jooga miya يا رجع حولان تباديها شو وحنقول له أنت باديها سكاس صار على وحبرت حاجة حتى المجال ده وحبرت حاجة وحلا وحاجة بنان موسجر dawadayaal waxaan intaas ku soo afeerinaa barnaamijkeenii aan idinka diyaarinay ceelka ooyood ee dixda sulul ee degmada Sagaag ee gobolka Noqo barnaamijka dhanka duubistu waa saaxiibkay Axmed Khaliif iyo Cabdisalaan Nimcaan iyo soo kale habayntii saaxiibkay Sharmaaka Cusmaan waxa soo kale kaalin mug leh ku lahaa hirgelinta barnaamijkan Xasan Abiib taniinta kulmi doona barnaamijkan mid la mid ah waa bahda SRTV oo idinkaga tagaysa sidaas iyo amaan Allah